السلام عليكم أصحابتي القالقة واسمع بروجرام oo idin leh maalin wanaagsan adiga daawanaya fiidiyowan haddii aad ku cusubtahay channelka fadlan subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyaal badan oo ku saabsan dhanka iyo tiknoolajiyadda fadlan daawo fiidiyowan waan isku soo laaban doonaa berihii u dambeeyay waxaa soo badanayay dhibaatooyinka ay geysanayaan moobeelada run ahaantii waa xanuun moobeel aad ka soo bixisay lacag inuu maanta tan ku gaarsiiyo dhibaato ismaaciilis program wuxuu maanta tan video uga hadli doonaa dhibaatooyinka moobeelada touchscreen-ka sida Samsung iyo Tecno ay u geystaan bulshada sida inay ku qarxaan ama inay dhibaatooyin kale ay geystaan videoan kuma soo wada koobi doono dhibaatooyinka ay wada geystaan moobeelada touchscreen laakiin waxaan diiradda saari doonaa oo kaliya dhanka iyo jaajarka ama dabka ismaaciilis ku darso waxaan ku raaci doonaa 4 qodob oo ka dhigi doonto moobeelkaaga dabkiisa mid stable ah laga yaabee inuu ahay moobeelkaaga mid markii aad dabayso isla markii uu dabkiisa hore ka dhamaado halka videoan ayuu ku jiraa ogowna dhibaatooyin fara badan ayaa jira moobeelkaaga ku keedsan haddii aadan ogaan waa dhibaato ismaaciilis program ayaa ku haya si daawo videoga isku soo noqod wanaagsan asxaabteeda qaaliga inuu moobeelkaaga kuu qarxo waxaa sababi kara laba shay kow in moobeelkaaga asuu dab ku jiro aad ku hadasho ama aad isticmaasho labo in moobeelkaaga aad dab uga tagto kadibna korontada ay tagto kadibna ay imaato kadibna halkaas ay dhacdo inuu moobeelkaaga dab ku dhaco waxay si wada jira wada siman yihiin in moobeelkaaga dab ku dhici doono hadduu dab ku dhacana uu sababi doono inuu moobeelkaaga qarxo haddaba fadlan iska ilaali inaad moobeelkaaga asigoo dab ku jiro inaad isticmaasho wuxuu sababi karaa inuu adiga aad daawanay fiidiyowan inuu dhibaato ku geysto haddii xitaa uu kuu qarxin dhibaato kale oo qarsoon ayaa jirto taas oo aan fiidiyo gooni ah usoo duubi doono taasoo ah in uu qofka dhegta saarto ama uu ku hadlo moobeelkii uu dab ku jiro kadibna uu moobeelka halkaasi uu awood ugu yeesho inuu qofka maskaxdiisa uu dhibaato gaarsiiyo video kale ayaan wax hadli doonaa digniin haddii aad tahay ruux isticmaala moobeelada touchscreen-ka sida Samsung iyo Tecno fadlan iska ilaali inaad ku hadasho moobeelkaaga asigoo dab ku jiro sidoo kale fadlan iska ilaali in moobeelkaaga aad uga tagto dab sidoo kale waxaa dhici kara inuu moobeelkaaga halkaas uga qarxo laga yaabee dadka qaar inay sameeyaan habeenkii inay moobeelkooda dab la dhigaan kadibna ay usoo kacaan moobeelkooda oo shaashadii dhan ka burburay ama uu gubtay ama shiilmay run ahaantii waa xanuun moobeel aad ka bixisa lacag inuu maanta tan adiga daawanaya videogan uu dhibaato ku geysto haddii intaas ugu gudbo digniintii yareed ee ku saabsaneed moobeeladana touchscreen-ka ah dhibaatooyinka ay noo geysan karaan aan ku raaciyo 4 qodob oo ka dhigi karta moobeelkaaga baterigiisa mid nadiif ah laga yaabay adiga daawanaya videogan inaad ku aragto moobeelkaaga markii aad dabayso kadib inuu dabka isla markiiba uu cuno adigoonan isticmaalin halka wuxuu ku jira 4 qodob oo aan ku sheegi doono aan ku tiriga tirso kow badankeenu waxaan naqaanaa ilaa uu moobeelka zero ka tago dab ma gelino dadka qaar waxa ay ku faanaan moobeelkayga wuxuu ku damaa eber laakiin miyaadan ogeyn in moobeelkaaga aad geyso zero inay sababi karto in moobeelkaaga baterigiisa uu daciifo haddaba fadlan ha isku dayin ilaa ay moobeelkaagu eber ka gaaray inaad la sugto mar haddii uu kuu soo qoro calaamadda digniinta ah ama uu gaaro 15 ama 14 boqolkiiba fadlan geli moobeelkaaga dab sababtoo ah baterigaaga wuxuu noqon doonaa mid stable ah qodobka labaad dadka qaar marka ay moobeelkooda jaajar ay geliyaan halka ayay uga tagaan kadibna saacado kadib ayay u imaadaan moobeelkii oo buuxsamo saacado ka hor
taas waxay sababi kartaa laba dhibaato. Kow, inuu mobilkaaga uu gubto. Labo, iyo inuu batarigaaga macaanaado. waxaana taas ku keeni kartaa haddii uu batarigaaga macaanaado inuu mobilkaaga uu noqdo mid dabka aad u cuna. hadhowetana waxaa ka sheegi doontaa cudurka ah mobilkayga 24 saacba 20 mar ayuu noqdaa dab la'aan. qodobkan saddexaad wuxuu soo hosgeli doonaa qodobadii hore aan usoo sheegay, kaasoo ah mobilkaaga ha isticmaalin asigoo dab ku jira. mobilkaaga oo aad isticmaasho asigoo dab ku jira waxa uu sababi karaa in mobilkaaga baterigiisa uu daciifo. hadhowetana cudurka aan kuu sheegaya ayaa ku dhici doona, kadibna waxaa noqon doontaa qof marka uu buuxiyo kadib isla markiiba uu mobilkiisa dabka uu ka go'o. fadlan ha isticmaalin mobilkaaga asigoo dab ku jira. badankeenu waxaan naqaanaa qaacido ah mobilkeena asigoo dab ku jiro ayaan kula sheekaysanaa chatting ama aan ku isticmaalnaa internet. taas mobilkaaga baterigiisa ayay u keeni kartaa dhibaato fara badan. qodobka afaraad ahna qodobka ugu dambeeya ee qodobada aan kuu soo sheegay. fadlan mobilkaaga ha ku jaajareen jaajar uu lahayn. dadka qaar waxay isticmaalaan jaajaro aysan lahayn mobilkooda. taas waxa ay sababi kartaa in mobilka uu ku dhaco dab xowli ah. sababtoo ah mobilkan jaajarkiisa cabir iyo wuxuu soo maray shirkad laga yaabee inay kala process yihiin. fadlan mobilkaaga ha u adeegsan jaajarkiisa midaan ahayn. dadka qaar waxaa arkaysaa oo mobilkooda ku jaajareynaya jaajar shirkad kale ay soo saartay iyo mobil shirkad kale ay soo saartay. waxay sababi kartaa inuu baterigaaga daciifo. waa dareemayaa qodobada aad ayay u bateen, laakiin xalka ayaa ila noqday in Ismaaciilis program asxaabtiisa u bayaaniyo wax walba oo jiro. fadlan waa dareemayaa video ayaa kugu dheeraaday, waan ka xumaa, laakiin xaqiiqada ayaa ah in wax walba aan istusino. fadlan haddii aad ka heshay videogan like saar, hana ilaawin inaad channelka subscribe saarto, ana mogaan in asxaabtaada la wadaagto. sababtoo ah adiga hadda daawanaya wax badan ayaa ka faa'iiday, saaxiibkaana wax badan ayuu ka faa'iidayaa. laga yaabee in naf qofeed aad ku badbaadido. waad ku mahadsantahay daawadashada videogan. waxay noo balama videogan iyo kan xiga. mahadsanid.